وأنا صاحب يا سود وهذا waxaan rabaa inaan idin la wadaago xogtii wararka ugu dambeeyay dagaalo iyo duqeymo toos ah ka dhacay xalay gobolka Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose iyo Galgaduud xogo hoos aan helin ayaa sheegaya in xalay dagaalo iyo duqeymo toos ah ka dhaceen gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Masaajid Alguud shalay ayay ahayd markii dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay soo weerareen degmada Masaajid Alguud halkaas oo fariisan ay ku lahaayeen ciidanka xoogga Soomaaliyeed balse Al-Shabaab ayaa u soo gashay inay gacan ku haynta degmada Masaajid Alguud ay la wareegaan sidoo kale xalay waxay duqeymo toos ah ka dhaceen gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan Awdheegle iyo Soobi Caanole halkaas oo lagu soo waramayo in lagu beegsaday dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo horjoogyaal sidoo kale xalay waxay duqeymo ka dhaceen gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Ceelbuur halkaas oo lagu beegsaday dagaalyahanno iyo horjoogyaal ka tirsan kooxda sidoo kale Ceelbuur waa fariisan weyn kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Galgaduud waxayna ka soo awaalaan weerarada ay ka geystaan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose dagaalyahanno iyo horjoogyaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo marayay qaybo ka mid ah degmada Ceelbuur oo watay gawaarida dagaalka ah iyo gaari suuga ayaa lagu soo waramayaa in duqeyn la beegsaday kooxda Al-Shabaab duqeyntaas ayaa Al-Shabaab loogu gubay gaariga suuga ahaa iyo 5 cabdi bilo kooxda Al-Shabaab ay wateen sidoo kale duqeynta gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Ceelbuur xalay ka dhacday waxaa lagu beegsaday dagaalyahanno iyo horjoogyaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku dhuumalaysanayay fariisan halkaas ay ku lahaayeen kooxda Al-Shabaab duqeyntan xalay ka dhacday gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Ceelbuur Al-Shabaab waxaa lagu beegsaday fariisan halkaas kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen waxaa lagu soo waramayaa in horjoogyaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo waliba u dhashay wadamada Carabta halkaas ay ka soo maleegayeen ay ku sameynayeen qaraxyo la rabay in lagu soo qaado xerooyin ciidan xoogga Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale warar waxaa jira sheegaya in xalay degmada Masaajid Alguud ay ka dhacday duqeyntii abid ugu cusleed kadib markii dagaalyahanno ka tirsan shalay kooxda ay weerareen Masaajid Alguud halkaas oo ay kula wareegeen gacan ku haynta degmada Masaajid Alguud Al-Shabaab shalay dagaalka ay ku soo qaadeen degmada Masaajid Alguud waxay kula wareegeen gacan ku haynta degmada waxay nolosha ku wateen askar waxayna la wareegeen hub iyo saanad ciidan oo halkaas taal kadib markii ciidanka dawladda ay ka carareen xeradii halkaas ay ku lahaayeen Al-Shabaab ayaa bishan Ramadaan xoojisay weerarada gaadmada ay ku qaadaan xerooyinka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose Al-Shabaab bishan kaliya waxay weeraro ku dhufo ku dhaqaaq ku qaadeen fariisimo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose weerarada bishan Al-Shabaab ay xoojiyeen ayaa kooxda u suurtagelisay in laba degmo gacan ku hayntooda Al-Shabaab ay la wareegaan balse degmo ka mid ah degmooyinka kooxda Al-Shabaab bishan ay la wareegeen isla xalay waa laga saaray kooxda Al-Shabaab balse ilaa haatan kooxda Al-Shabaab waxa laga saarlaayay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose Al-Shabaab gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Awdheegle waxay ku soo qaadeen weerar qaraxyo ah Al-Shabaab degmada Awdheegle oo hadda iyaga gacanta ku hayaan waxay ka mid ahayd degmada Awdheegle Al-Shabaab meelaha ay adag tahay inay weeraraan hadii ay weeraraan ay adkeed in ay la wareegaan kooxda Al-Shabaab balse nin ka soo goostay kooxda Al-Shabaab sidan loo sheegay oo isku soo dhiibay ciidanka halkaas fariisanta ku lahaa gaar ahaan degmada Awdheegle isku soo dhiibay isagoona sheegay in kooxda Al-Shabaab uu ka soo baxay hadda ka bacdina diyaar u yahay in dawladda uu la shaqeeyo balse nasiib xumo waxa dhacday in ninkii isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee fariisinta ku lahaa degmada Awdheegle isagii la soo dhaweeyay loo fidiyay gacan gargaar uu isagii u mishimo ragii walaalihiisa ahaa ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkaas ku sugnaa iyagaas halkaas u joogay dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab isku soo wada dub ninkan ayaa mishiinka kooxda Al-Shabaab ee ku soo qaadeen weerarka fariisinta Awdheegle ee ku lahaayeen xoog Soomaaliyeed ka dambeeyay taas oo ugu dambeyn Al-Shabaab halkaas ay kula wareegeen